إن الدكسية سلامة أيها سونا صاع روح يدانو وحن سمي كبيه هبلها أيها سو سمي كبار قروح بدن وعجيبة أو يسوي اختراعي أو فكري أيها سو سمي هذا إنما دي أي سو سميين محاذا كبيه هبلها إنه كنا بالبالشكي كبيه المريني أيها سمينا بال تاوشوا إنما بهالين كسر بودي إنه دكسي كلا واحد هذا إنكم كبيه هبلها صو سميسين أنا كنا ما توحنا سمينا بالشكي إنما دو أي كبار بالش في سنة marka waa maxay waa sidaas weeyaan isku dhiib maskaxda waa in la tuujiyo وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة. جمعية التوعية oo run ahaantii aniga qiimo gaar ah iyo sumad gaar ah leh waayo jamciyadu tawciya waxaan la shaqayn jiray oo sidan oo kale aanu waxa weeyaan aan qayb uga ahaan jiray muddo ku siman imika 14 sanadood ka hor aan idhaahdo waxa weeyaan 2003 2002 xilliyada ayaa anagoo dugsiga sare dabayaqadiisa ama gabagabadiisa marayna kala sidii ugu dambeeyay ayaanu jamciyada qayb ka ahaan jirnay oo aanu sidan oo kale waxa weeyaan aanu qayb uga ahaan jirnay ilaahay khayr ha siiyo jamciyadu tawciya run ahaantii marnaba kama idaalin muddada dhowr iyo 10 sanadooda ee waxa weeyaan ay barnaamijyada wadeen ee ay ardayda dacwadda kula dhex jireen ee ay ma garanaysaa waxa weeyaan fasaxyada ardayda uga faa'iideynayeen run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Sheekh Saad oo ilaa xilliga waxa weeyaan hawsha la soo jiifay una dhabar adeegay Sheekh Ismaaciil iyo xubnaha kale ee la shaqeynayay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa jamciyada isku cusbin waa jamciyadeedii run ahaantii anigoo ardayna waan la soo shaqeeyay anigoo maamulo ana waan la shaqeynayaa run ahaantii waa arrin aad iyo aad qiimo gaar ah igu leh run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ardayda halkan barnaamijka qiimaha la inoogu soo bandhigtay waxa weeyaan ee samaysay ee farsamadan keentay ee fakartay marka ardaydaas way fikireen oo practical bay wax inoo tuseen si camali ah waxa weeyaan run ahaantii marka alaab aad u macaan bay ardaydaasi inoo soo bandhigeen oo aan oran karo kuwa dibadaha laga keeno ama waabay la tartami karaan ama waabay ka sii fiicnaan karaan waxa kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayaa ardayda waxa weeyaan dhagaan naafada ka ah ee iyaguna waxa weeyaan barnaamijka fiican inoo soo bandhigay anigoo kamid ah dugsiga salaama kana mid ah ardayda wax ka dhigan jirtay jamciyatu tawciyatul islaamiya intii fasaxan ku jirnay waxaan u yeedhi doonaa ardayga koobaad oo sameeyay horta hore waxaad u maqli jirteen dhinacan hablahan la hadlayaa hore waxaad u maqli jirteen kabayna loo soo sameeyay imika waxaan u yeedhi doonaa arday kaba sameeyay waana Sakariya Khadar ku soo dhawo waxbay aan hadal badan si sheegin balse laakiin laba qodob baan sheegayaa kabahan aad arkaysaan waxa laga sameeyay waa xarko iyo sar inta kabta hoosa hasa ahaatee waa kaba caadi loo gashanayo dadka qaarna ay gashtaanba laakiin maanta halkan waxaan anigu u imaaday waxaan ogaaday in dhalin ay ka soo qayb gashay naafa dhagaha ka ah waana wax lagu cibro qaato ilaahay quraankiisa ku yiri afa fi anfusikum afala tubsirun warna fihiina miyaynan eegin inageenin dhagaha qabnay lixdeen lixaadinoo dhamayska tirnaayeen ayaa waxba qabsan kari weynay maxay ahayd waa rashad oo waxaan ka sameeyay aag talabaad ku shaqeynaysan waxa weeyaan waa deynago iyo batterigii solar system to ah battery aan ka saaray muxuu ahaayay tooshan ka saaray xagan waxaan ku talaalay xarigan muxuu ahaayay oo bedelaaya dabka oo ah xarigii waxa uu ka kooban yahay karatoon iyo hal musbaar oo kaliya wax kale uma baahna waxa ayuu u yar fikray markuu yar fikro waxa soo sharafnayno kan kale waxa weeyaan waa kamanada la qaraaco waxa uu ka kooban yahay isaguna
kortoon geliya niyaddaa loo dhisaa qof laakiin marka loo dhiso markuu qof wax sameeyo matalan oo kale iminka anigu xaafadda walaashii baan ku sameeyey xaafaddeedu kuma sameey dee dhiirigelin badan baan ka helay hablo aan abti u ahay ayaan dhiirigelin ka helay waxaan markii ugu horreysay waxaan sameeyey tan markaan sameeyeen laptop markaan sameeyey laptopkii ugu yar kala jiray waxaan sameeyey haddana kamankan haddana waxaan sameeyey aqal 4 dabaqa waan soo kala qaadi kari waayey waxaan sirda labadanba horta labadan soo qaad isaguna waxa lagu isticmaalayaa kana mobilkaaba lagu isticmaalayaa waan intusi doonaa insha Allah تفضل مشكور ومأجور iyo ardaydiisii oo maanta iyadoo aanu marayno 2018 aanu dowladooyinkii wali wadno maamulahooduna uu dugsiga maxamed axmed cali ahaan jiray oo aanu u soo dhigi jirnay siminaarada diiniga ah waa ilaahay mahadi sida la ajrigeed waxaanu u raacinaynaa maadaama Saciid uu yara cudur daarto hawl u baxay inaanu ugu dhiibno jaayisadii maamulaha aanu ugu soo talagalay ardaydiisan wax soo bandhigay inaanu ugu dhiibno oo ay u geeyaan insha Allah taala waay Yes.